بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه يا سلام يا لما شعب الصومالية دين الداونية سلامك بعدي waxaan jeclahay in la wadaago ujeedooyinkii aan u aasaasnay ururka cadaaladda iyo sinaanta Soomaaliyeed ee sime inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago ayaan jeclahay inta saaran u guda gelin ujeedooyinka aan ururka u aasaasnay waxaan jeclahay inaan wax yar oo hordhac ka horeysiiyo waxaan ognahay in ummadda Soomaaliyeed ay runtii dhibaato xooggan ku hayso wax la yiraahdo qabyaalad waxaa kaloo inuu ognahay arrin isla qabyaaladda la xiriira oo dhaqan waa Soomaalida oo la yiraahdo dhaqan qayb sooca la yiraahdo inuu isna jiro oo bulshada Soomaalida runtii dhibaato weyn ku hayo guud ahaanteed gaar ahaan si gaar ah u taabtay bulsho ka mid ah bulshada Soomaalida dhammaan qaybaha iyo geeyga Soomaalida oo dhan arrimahaas markii aanu aragnay ka bacdi waxaanu go'aansanay annagoo ummad Soomaaliyeed oo runtii meelo kala duwan ku kala sugan u badan dad dhalinyaro ah in sidii aafooyinka noocaas aan uga hortagi lahayn aanu iska kaashano isaga nimaadno ismaatinkayaga waxaa ka dhashay inaan ururkaas samayno ururkaas waxaan ujeedadiisu tahay markaa sidii ummadda Soomaaliyeed u fahamsiin lahaa dhaqankaas la xiriira caadadii ama caadooyinkii waqtigii jaahiliyadii ummadda Soomaaliyeed run ahaantii ay isticmaali jirtay in sidii hadda loo joojin lahaa maadaama dadkii ay maaragtay dhinaca diinta iyo maadigaba ummad wax baratay oo ilbaxa ay ummadii noqotay wax fara badan fahamsan in waqtigii hadda imika la joojin lahaa la joogo in la joojiyaa arrintaasi run ahaantii waxaan u aragnaa haddii aanu nahay ururka cadaaladda iyo sinaanta Soomaaliyeed sibe inay ummadda Soomaalida u tahay gobonnimo weyn ama guul weyn oo la mid ah waqtiga ay xornimada heleen oo kale waayo dhaqankaasi wuxuu ku hayaa ummadda Soomaalida guud ahaanteed gumaysi iyo dhibaato simply haddii ay jawaabto sidee uu gumaysi ugu hayaa haddii la weydiin lahaa jawaabtu waxay noqonaysaa xirfadlayaasha Soomaaliyeed ummadda kaliya ama wax soo saarta ummadda Soomaalida waa ummadda Soomaaliyeed ee haybta ay u dhashaan lala xiriiriyo xirfadda ay leeyihiin ka bacdina lagu dhibaateeyo